السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج aan kaga hadli doono siyaasadda Bariga Afrika inagoo diiradda ku saari doona shirkii dhowaan ka dhacay 14 bishii 6 2020 ee wadahadallada labada dal Somaliland iyo Soomaaliya. Inagoo eegi doona siyaasadda ay Djibouti ka leedahay labada dal ee Somaliland iyo Soomaaliya wadahadalladooda iyo danta ugu jirta labada dal. Sidoo kale waxaan diiradda ku saari doonaa loolanka ka dhexeeya dalka Djibouti iyo Kenya. Dhanka kale, Ethiopia sidee ayay u aragtaa wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya? Se maxay tahay danta ugu jirta iyo siyaasadda ay ka leedahay wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya? Inagoo barnaamij ka dhigi doona barnaamij aan ku falanqayn doono isbeddelka siyaasadda Bariga Afrika. Somaliland ayaa in ku dhow 30 sano ay kala maqnaayeen Soomaaliya, taasoo Somaliland intaasoo dhan ahayd dal madax bannaan oo aan caalamkuna ictiraafin. Somaliland ayaa doonaysay shirkii dhowaan ka dhacay dalka Djibouti in caalamka u caddayso inay tahay dal madax bannaan uu caalamkuna ictiraafo. Dhinaca kale, Somaliland ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeysay in heshiisyo hore ay kaga baxday oo 2011 ilaa 2012 dhex maray labada dowladood. Dhinaca kale, Soomaaliya waxay rabtaa dal in ku dhow 30 sano inay ku dhahdo aan midowno, taas oo labada dowladood aad ugu kala duwan yihiin dhinaca siyaasadda iyo aragtiyaha. Haddaba waa maxay sababta ay Soomaaliya uga soo horjeedo madax bannaanida caalamka ee Somaliland? Soomaaliya waxay ogtahay haddii ay Somaliland hesho madax bannaani dhinaca dhaqaalaha, dhinaca awoodda, inay noqonayso dal awood u leh, iyo dhinaca siyaasadda caalamkaba, taas oo ay noqon karto inay tahay amba ay ka ilaalinayso ictiraafka dowladda Soomaaliya oo aanay rabin dowlad awood leh. Somaliland sidoo kale ma rabto dowlad xasuuq iyo dagaallo dhex mareen in ay mar labaad midoobaan. Hadda Somaliland waa dalka madax bannaan. Soomaaliya dhanka dowladnimo iyo sistamka dowladnimo, Somaliland waa dalka madax bannaan Soomaaliya. Falanqaynta siyaasadda ayaa dhinaca kale ku eegi doona dowladda Djibouti danta ugu jirta shirka wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya. Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa dooran doona 5 xubnood oo kuraasta aan joogtada ahayn ee Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay. Kuraasta lagu tartami doono ayaa 2021 ilaa 2022 waana mid wareegto u ah oo ay ku tartami doonaan dalalka caalamku sanad walba. 5 kursi ee lagu tartami doono ayaa loolan adagi ku dhex mari doona Kenya iyo Djibouti. Kenya iyo Djibouti ayaa olole ballaaran ka dhexeeya sidii midba midka kale uga guuleysan lahaa, taasoo ay Djibouti olole ballaaran ka wado Jaamacadda Carabta iyo wadamo badan oo Carabta ah. Haddaba shirkii dhowaan ka dhacay Djibouti
ee Somaliland iyo Soomaaliya ayaa ka qayb noqonaya inay campaign ku gasho Djibouti. Dr. Abiy Ahmed ayaa isaguna sanadkii 2019 ku guuleystay Nobel Prize isagoo Itoobiya iyo Eritrea dib u heshiisiiyey. Haddaba siyaasadda uu ka leeyahay wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya ayaa ah inay noqon karto in mar labaad uu rabo inuu ku guuleysto Nobel Prize isagoo Somaliland iyo Soomaaliya doonaya inuu heshiisiiyo. Haddii aan dhanka kale ka fiirino siyaasadda, Dr. Abiy Ahmed wax siyaasadi kuma jiraan heshiisiinta labada dal isagoo ciidamada Midowga Afrika ay ka mid yihiin ciidamada Itoobiya ee ilaalinaya Soomaaliya, taasoo ay dakhli badan amba dhaqaale badan ka soo galo.